التقوى سوى الله الضي ضدكم إسلام كمسلمين توحوا لهي وتزودوا صهيقات فإن خير الزاد التقوى وحا خير بدن وحا صهيقات التقوى الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام وحونا أمري يعني سوى كهالله التقوى وحير تقوى الله مركوها اللي اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتقوا الله حيثما كنت بالنبي يقول لي مالك استقفك الإسلام أو جوقفك مسلم إنه الله سبحانه وتعالى كعبصده وأتبع السيئة الحسنة تمحها وحكست خلد وكدعان إنه راعي وناق إن الحسنات الله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذيبن السيئات وناقيا حمان تقفك إنسان كامرك كدعو وحاف وناكسن إنه دبمري ونا وح خلد هدو كادع يعني إنه وناق دبمري سد وخالق الناس بخلق حسن تقوذي الله نوحا لغو حري إن مركي آد حرق الله يا أديك يدين لحي مركي هاقاج سد وإلهي آد كعب سد وحا لغا ربا دادك إن مخلوقاتك كلان إنا نبدقل سد وكولا دقمتid أخلاق وناكسن سيدا أغنى هاي markii yani nolosha bila aadamka nolosha ay maraan 5 marxaladood ay maraan markii ilaahay uu qofka ugu talagalay in adduunka la keeno marxaladda ugu horeysa oo ah marxalatu rixim oo qofka dadka waxa la wax yara ka soo gudba inta badan yani way ayagu meed ah bay dhashaan ama midmaha iska dilma markaas oo kale marka riximka oo mugdi ah buu qofka soo maraa marxaladaas ومرحلة نور كميد إلهي سبحانه وتعالى ابن آدم كوجو تلقى مرحلة دلبات وقفكم مرنا حاول مرحلة الحياة وحلا إيدتك إنسان كإلهي وأبوري يعني أعمار أمة محمد لو قلت لقى إنه ولادان لحدا إلا صدبات سنة يعني وحا يستد وقت يربع يستاء إن إلهي أتكو عابد يسد لحدا كاس أما صدبات كاس سنة قفك قريبة أو قصة الرئيس مرحلة لقيابة مرحلة الشباب وكلنا كلمة أضوير أما مرحلة دحدحة إنا كل ما تد أما آد وقت أدافت تضباطنك وكذا يعني مركي للتريو ومرحلة آد ويروي وقفكم إلهي ومركو كسي عمري قاس لقربا إنا كقفا إيدي ستد محال لها إنا إلهي كعب ستد أعمال وناكسنا التي ما دد أنا كشكر سد وحيالي إلهي وكسي مرحلة الصدحات بوحتها مرحلة حياة البرزخ قفكم مركو مريا مرحلة قبرقة وأيضا كسر دير مرحلة داس وقفك إلا ولقصو صاري وكتشريو مرحلة داسنا ومرحلة أيضا قفك وحو أدونك كسهر مرصدي والله وكو عابدي وحياليه هدو دنبي لي من دنبي هالكاس وقصو عنيسو هدي ومتقانا وناق ولي من وناقاس وحق قبرك وكهيليو dadka badana markuu qofku dhinto waa la soo nooleynaya xayaatul barsakh waa nolol dheer ayadana nolosha afraad baa waxay tahay noloshan biicada oo qofka marka la soo saarayo ayadana waxay ka dheer tahay mararka qaar kood qofka intuu noolaa oo 50 sano waqti u dhigmata ayuu qofku noolaanaya meeshaas uu ku jiraya oo lagu xisaabinaya xisaab waxyaalo badan amareysid dambi kasta aa gashayna lagu soo horkeenayo marka dadka dhalinyarada maanta marka joogno xamoodaysa waxyaalaha cabsida rabbi baa ku yar oo qofka dhalinyarada wuxuu u maleynaya yani waqti dheer inuu haysto waqti badan uu waxyaalo badan uu ku sameynayo markaas waxyaalo badan oo dambiye kaga tagaya shala waxa arkaysaa qof walaashaaya ama walaalka uu ku noolaa oo kula noolaa oo waxyaalo badan oo akhdaa geystay oo ama internetka ama social media waxyaalo badan dadka kala wadaagay markaas loogama naseexaynin qofku waxa laga yaabaa in loo sacabatumo oo ama khaladaadka uu galay aan la oran war Ilaahay ka cabsan lama dhahay laakiin maanta dhinta waxa leeyahay halaga xadfo waxyaaluhu sameeyay meesha laga saaro qofkaas uu dhintay yani waa ogtiin qofku uu dhimanayo laakiin waxa laga rabaa qofka walaalka inaa uga naseexaysid ina u sheegtid inuu adduunkan u yimid inuu Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsado oo taqwo rabbi u leeyimaado inuu waqti badan haysanin saaxiibka wanaagsan waa saaxiibkaas marka qofkii markuu dhinto waxa uma qaban kartid inuu waxyaalo la jaro qofkani wuxuu la yimid biri la kulmaya tan ugu dambeysana waxa midda aakhiro oo nolosha ugu dambayso nolosha aakhiro noloshaas oo nolol dheer oo qofku uu san warigiis dhimanaynin ama janno ama naar u galayo marka qofka mu'minka waxa laga rabaa oo muslimka ah
inuu tilaabo kasta u qaaday Allah subxaanahu wa tacaala inuu uga cabsado xumaanta meelaha la faafinayeen in la yareeyo qofka walaalkaaga uga digtid inuu nolol badan inay sugayso oo kuwana uu kasoo gudbay kuwana uu u socdo marka noloshaan haysana waxay tahay wax walba inuu qofku nicmo inuu ka shukriyo inuu Allah subxaanahu wa tacaala ka cabsado inuu mataqaana khaladaadka iyo waxyaalaha uu sameynayo oo kale inuu qofku dib uga hakado ina mar walba waxa kasto ay qabanaysid in Allah subxaanahu wa tacaala soo xasuusatid nabiguna عليه الصلاة والسلام wuxuu dhahay qofkii alla ka cabsada naarta waa laga badbaadiyay waxa dareemaysaa marka qofka muslimka ah wax kasta uu sameynayo inay tilaabo kasta uu qaaday inuu Allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ay ku xiran tahay taqwadana waa waxa ugu muhiimsan oo qofka laga rabo inuu la yimaado Ilaahay subxaanahu wa tacaala soo ka hadlay wuxuu dhahay wama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja qofkii alla ka cabsada meel makhraj waxa loo sameeyay meel kasta uu yaani wuxuu uga baxo dhibaatooyinka oo dhan oo haysto oo kale yaani waxa laga yaabaa qofkaani inuu problem adduunyada inay ka haysato ama ma saako kale marka soo kacday waxyaalo badan ay kula soo darseen oo noloshaada kamid ah waxaas dhan waxa weeye waxaad ku burburin kartaa tilaabo kasta qaadid in Allah subxaanahu wa tacaala uga cabsatid ayada makhraj iyo meel ay uga fakatid ayada ku ahaanaysa waxyaalaha kale oo cabsida Allah subxaanahu wa tacaala lagaga helo waxa kamid ah ويرزق من حيث لا يحتسب qofkan waxa laga irsaaqaya ama Allah subxaanahu wa ta'ala xaqiisa wuxuu ka helayaa faraj meel kasta faraj ba Ilaahay uga furaya waxaana la siinayaa mataqaana irsaaqad buu xaq alla ka helaya asagoo waxba ku caasin laakiin maanta waxa dareemaysaa irsaaqadii dhanba inay gashay leeyr la meel kasta oo qofka muslimka ah xaraan iyo xalaal hada uu raadinay maanta waxa laga yaabaa inaa maanta u soo gashid in social media dadka inaa ku fitnaysid adigu laakiin irsaaqad baa kaga raadinaysid laakiin dadkii baa ku fitnays marka hada Allah subxaanahu wa tacaala uga cabsanay waxa laga yaabaa irsaaqada meel kale inaa kaga heli lahayd maanta waxyaalaha kale oo la soo biyo waxa weeye qofka waxa maqlaysa qof muslimna waxa lagu leeyahay ama meel buu iska soo tuuray ama wuu isgubay ama wuu isdilay waxaas dhan waxa keentay يعني عبسي ربي دن ما جرت قفك waa muslim buu sheeganaya laakiin xaqiiqadii ma ahayn wuxuu Ilaahay kaga cabsanayay laana waxa hadii waxyaalahaas haduu alla ka cabsanahay wax dhib dhan uma imaateen furaha nolosha maxaa la saacadada ama liimaan dhan buu qofku heli lahaa Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala asaga markii horeba caloosha hooyada oo mugdi ah kugu ilaaliyay adigoona xeelad iyo xoog lahayn maanta intaas adoo la eeg hadaad kaga cabsan lahayd Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxyaalo badan buu ku siin lahaa oo ay kamid tahay inaa ku liibaantid in irsaaqada lagu furo in mataqaana khaatimo wanaagsan ah kaga heshid laana cabsida alla waxa ku dhaxal siinaysaa inaa marka dambe xusn khaatimo ay ku uu qofku ku dhinto markuu dhimanayo oo la waafajiyo inuu Ilaahay asagoo xusayo uu dhinto waxyaalaha kale laga dhaxlo maxal dhahaa taqwada alle waxa way qofka inaad ibn aadamka dhan inaa ka badbaadid ayaguna ay ka badbaadan لأن ما أنت وحيالها أقبضن أو لسكوا هيستفرق يدمر وحاول مالك سادتي ما دد قفكي وحالها هيستوى على جاي نروح إلا هذا الهاي أو دنبي لو هذا الهاي يعني وخالد عقشي لأن هدي أمرك هو رخف أخلاق وناكسن هلا هيدو على جاي إن هذا الكاو هذا اللي ناكسن لو هذا الهاينا مركب ما أنت نلاش هنا أكون والله هيدتك دليرة فرنتين بقولك بس عشان السجال ضد حر أماهن وحسن حر وأهين وحاول يعني الشيطان بيقول أن أدومه ويهين xubnahoodii iyo jirkoodii iyo caqligoodii dhan waxa loo xiray yani inay Allah ku caasiyaan marka adigoo meediyaga isticmaalay adoo gurigaaga jooga adoo shaqaysanay adoo wax walba suubinay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u badal waxaas dhan dhaqamada lahayd dhan ina Ilaahay ajar uga xisaabtid oo dhaqankaaga dhan u badashid dhaqan wanaagsan waxaan ku soo gabagabeynaya الله سبحانه وتعالى وحيالها مركي laga hadlay اعتقادka qofka inuu wuxuu اعتقادsan yahay ama taqwada waxa lagu soo koobay waxa la dhahay yani taqwada waxyaalaha ku dhaxalsiinaysa waxa kamid ah marka Allah subhanahu wa ta'ala qalbigaaga uu soo galay in alla ka cabsatid in hadana amal u badishid salaadiyo kale zakadii akhlaaqdi wanaagsaneed soonkii waxyaalaha soo dhan waxay ka yimaadaan qalbigana waxa aas u ah qofku inuu alla ka cabsado nabiguna عليه الصلاه والسلام uu noo sheegay qalbiga markuu ka hadlay xudala wala wa inna fil jasadi mudqatun idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu markuu alla nabigu ka hadlay wuxuu dhahay jirka waxa ku jirto xubintaasoo
ألا وإن في الجسم إذا صلح هدي وناكسناتو جركو دhan wanaagsananay بمعنى gabadh inay xijaabato oo akhlaaqdeedii waxay dhan ay kaamil noqdo aysan macaasi aysan aadin waxa sabab u ah qalbigana waxa maamulaya waxa weeye yani taqwada Allah subhanahu wa ta'ala qof walba heerka uu Allah ka cabsanayo haday cabsidii ka tagto بمعنى adoo dhan waa fasaasan qof fasaasan baa tahay gabayaagi hadalka gabayaan ku soo gabagabeynaya oo taqwada kaga hadlayay wuxuu dhahay idal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryan walaw kana kasiyan فخير خصال العبد ضاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا تقوده kaga hadlay qofka wuxuu dhahay haduusan gashanin hadaas Allah subhanahu adaadan cabsida rabbi hadaadan huwan amree aadan ka dhiganin qofkaas wuxuu ahaanayaa buu taqallaba curyan walaw kana kaasiyan hadaa adoo dhar qaba qaawanaanaysa liana qof akhlaaqaadiba ka soo dhaxbaxaysa qof akhlaaq xun baa ahaanaysa yani dadkii marka mujtamac marka timaado waa lagu tilmaamaya hebel baa lagu leeyahay hebel waxaana lagu dhahay waxa weeye qalbigan taqwada Allah haduu ka marnaado oo akhlaaq xuma ay meeshii timaado ama fasaad u yimaado si kasta u xijaabantahay ama dad u qaftay ama aad qof muslim u egtahay laakiin qalbigii baa ka qaawantahay dadkoona waxa ku fasahaadinaysa waxa weeye waxa afcaasha adiga qabanaysa fa khayru khusal al-abd da'atu rabbi waxyaala ugu wanaagsan oo qofka akhlaaq maxaa dhaqanka qofka ugu wanaagsan oo adoonku leeyahay waxa cabsida rabbi inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsado wala khayra fi man kana lillahi 'asiyan khayrna malahan oo qofkaasi waa qof mataqaana aan khayr dhan aan lahayn wuxuu sababtiis u yeeshan waxa weeye fi man kana lillahi 'asiyan khayr malahan buu dhahay qofka ilaahay 'aasiya Allah subhanahu wa ta'ala waxaana aayadii baana noogu gabagabeynaa insha Allah oo Allah kaga hadlay watazawadu fa inna khayra zadi at-taqwa waxa ugu muhiimsan oo qofka laga rabo inuu la yimaado oo inta adduunka amaaninta dhalatay ilaa maalintii aad soo qaangaartay oo lagu waajibiyay in Ilaahay caabudid ilaa maalinta ka dhimanaysid waxa u baahan tahay sahayda oo taqwada subhanahu wa ta'ala oo ah leeyahay qofka haduusan Allah uu ka cabsanin waxyaalihi uu kaga dhaxlay waa dareemaysa dadka hadda maanta dhimanaya qofka ugu hantida badan ama boqortooyo ama madaxweyne waxaas dhan markay dhintaan waxa la hadalhayaa waa laba bari haday maalintii laba bari wixii ka dambeeyay dadku qof walba qabrigiisa wuxuu shaqaystay ugu tagaya marka waxa dareemaysa inaad hanti iyo dhar iyo maal iyo waxaas iyo aad u baahantahay in Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsatid ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلهي ليه qofkii intuu Allah ka cabsado amal wanaagsan la yimaado waxa lagu nooleynaya nolol wanaagsan noloshaasna waa nolosha adduun iyo mid aakhiro adduunkana waa badbaadaysa aakhiro marka tagtidna amalkaaga baa wehel lagaaga dhigay qabriga oo ugu horeeya xayaatul barsakh marka tagtid waxa Allah subhanahu wa ta'ala la hortagto amalkaaga wehel ku noqoneen intaasaan ku soo gabagabeynaa assalaam alaykum